qofka jinsiyada Mareykan wata wadan ajnabi ah uu ka shaqeysan karaa xilal waxaa jiro oo sensitive jiro oo ama fasax u baahan jiro mataqaana ama u baahan in qofka lagu wargeliyo waxaa kamid ah militariga qof jinsiyada Mareykan wata intuu yimaado xamar ciidanka Soomaaliya kuma beeri karo waxyaabo nidaamyo waxyaabo qabanaya jiro mataqaana oo loo baahan yahay inuu ogaado saas la mid ah madaxweynaha Farmaajo magaalada doortay waxa kamid tahay waxyaabihii lagala hadlay kamid tahay haddii uu haysto hadduu keep gareeyo mataqaana jinsiyadiisana faa'iidada iyo dhibaatada ay u leedahay hadduu iska celiyeyna faa'iidada iyo dhibaatada ay u leedahay ma kala hadlay Mareykanka way kala hadleen official kala hadleen sidii kala hadlay bish uu kala hadlay طبعا haddii uu baasaboorka celiyo oo qof Soomaali caadi noqdo wuxuu noqonaa head of state America booqan karo asoo madaxweyne immunity loo baahnaa nidaamka loo baahnaa heli karo inuu noqonaa sida xashiq uu tooga ee soo dhaweynaya laakiin maanta asoo Farmaajo haysta madaxweyne Mareykanka hadduu asoo jinsiyada Mareykan hadduu America tago maxaa la dhahayaa madaxweyne lagu sheegi karo immunity ma helayo marka caqabadaha horta ka mid tahay inta aan baaray doorto markii inuu baasaboorka haysto warkaas inta aan baaray waa madaxweynaha kaliya arkaysa website-ka oo la leeyahay wuxuu retain gareeyay mataqaana inuu sii ahaado Mareykan record ma jiro madaxweynayaal record jiro liis waxaa jira warshad laga helaa jiro madaxda iska soo celisay iyo ku retain gareeyay madaxweynaha kaliya ee baasaboorkiisa aan celin waayo inuu yaa kamid madaxweynayaasha dalka adduunka kuwa soo celiyay waxaa kamid ah barnaamijka Israa'iil kamid ah laba goor oo celiyay marna asoo askari oo celiyay dib wadan u qaatay marlabaadna wuxuu celiyay asoo barnaamij soo celiyay waxaa kamid ah Lithuania waxaa kamid ah Ashraf Ghani waxaa kamid ah Hamid Karzai maandhood waxaa celiyay madaxweynaha Ciraaq jinsiyada wuxuu haystay Ingiriis ah yuu iska celiyay Haiti celisay madax badan adduunka Haiti Mareykan ha Lithuania kamid ah Georgia kamid ah madaxweynaha Georgia waa celiyay isaga marka hadda raashada celin kara waan soo qaadan karaa hadduu ka tagay mana qof wala soo celinaa hadduu dib u dalbado inuu citizen ma kala noqdo hadduusan celinin sida hadda Farmaajo kaleeto oo haysto macaamilka maxaa see horta number 1 waa nin Mareykan ah oo shaqada Mareykanka waa qabanaya mar labaad marka mararka qaarkood go'aanka u gaarayo waa inuu miisaama uu yiraahdaa go'aanka haddaan gaaro dowladda Mareykanka maxay ka qabtaa waxyaabaha mushabaha aan la hubin waxaa kamid ah for example Farmaajo wuxuu ka yimid gobolka New York capital punishment waxa loo yaqaan dilka loo yaqaan mamnuuc ka yahay toogashada Farmaajo maanta duu qasaxo in qof la toogto ee New York ku noqdo suurtagal waxa in la dacweyn karo caqabadaha taayina kamid tahay mataqaana u baahan in aad loo darso marka Soomaaliya u saameynaysa Mareykanka hadda Soomaaliya wax badan oo ka haya hawl badan socoto san soo sheegnay marka qof Mareykan oo jinsiyada celin madaxweyne yahay go'aamada isla gaari kara faa'iido qasaar labada u leedahay waa maro waa nin Mareykanka access u leh oo mataqaana laga yaabo in waxyaabo badan oo qofka kale ajnabiga uu soo heli lahayn access noocaas uu leeyahay congressman ku wici kara senator ku wici kara mataqaana waxaan ka wada dhaqanka Mareykanka wixii uu yaqaana faa'iido badan u leedahay waa mar labaad haddii ay noqoto go'aanka u qaadanayo waa inuu miisaama laga yaabaa in 100% aanu dhihi karin mataqaana maxaa Soomaaliya dan u ah waa inuu marka qaarkood uu hubiyo haddii wax Soomaaliya dan u ah ay Mareykanka Israa'iil ka ahayn su'aashtan waxa weeye intuu aadaya loyalty xagee aadaysa waa ninkan laba dhaar ku jira dhaar Soomaaliya ku jira dhaar Mareykan ku jira shirkada jirta maalmo dhaweed Soomaaliya hay karayso lobby wax samayso Mareykankiyo hadda hawshiisii noo furan tahay oo maxaa uga baahnaan in hadda shirkad hayr kareen oo danaha Mareykanka iyo Soomaaliya horta lobby wax caadi waa cid Mareykan daadar inaad lama caamusho Mareykan waa u baahan inaad lobby samayso wadamadan lacag badan ku bixiyaan inta iska daacta wadamada inta Soomaaliland iyo Puntland xitaa qaarkood marka lacag ku bixiyaan hayr kareen inay access u helaan oo mataqaana ay dan ay leeyihiin ka fushidaan marka wax oo mataqaana maaha qeyr caadi maaha dowladda Soomaaliya waxa uga baahanahay dowladda Soomaaliya in la timaado ajendayaal tiraado ajendahan yaa u baahanahay Congress inuu noo ansixiyo noo loo bagareeyo marka ayaga raba inay bush gareeyaan marka loob caadi waa waxaa jiro in Farmaajo oo qolada lobbiga sameynaysa ay wasatin oo Trump la kulmo wararkaas qolada waa ku arkay laakiin su'aashtan waxay tahay asoo Mareykan asoo jinsiyada Mareykan wato inuu madaxweyne Mareykan la kulmo waxa u dhacayna maaha marka ma qaasi ugu fudaa doonto
ismali waa fududaan doontaa laakiin ma time will tell